Asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu. Waa mar kale arrimaha Bollywoodka aan kaga hadli jirnay jilayaasha India. Maanta waxaan kusoo qaadanay jilaaga caanka Ajay Devgan. Fadlan haddii ay tahay markaad kuulasaan soo booqato, fadlan fura calaamada gambaleelka oo muuqaalkan sii shirkiri oo la wadaag. Jilaaga ay Soomaalida u yaqaaniin Ajay Devgan magaciisa runtu waa Vishal Feeru. Jilaagan ayaa la baxay Ajay Devgan marka uu kusoo biiriyay aflaan samaynta. Jilaagan Ajay Devgan ayaa dhashay 2 Febraayo 1969. Jilaagani wuxuu ka soo jeedaa qoys awood ku leh dhanka Bollywoodka. Aabihiisa waa soo saare waana maalgeliye. Aabihiisa waxaa la yidhahdaa Feeru Devgan halka hooyadiis la yidhaahdo Veena Devgan. Waana mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu mushaarka badan India. Devgan wuxuu shaqadiisa aflaan ka bilaabay Fall or Kanti 1991. Filimkiisa xiga wuxuu ahaa Hindustani Ki Sanam oo soo baxay sanadii 1999. Sidoo kale wuxuu la imaaday sanadii 1997 filimkii Ishqi ee labadan Juuri Jalwa Aamir Khan iyo Kajal. Filimkani ayaa aad loo yaqaan waana filim jacayl ah. Sidoo kale wuxuu la yimid The Legend of Bhagat Singh 2002 iyo filimkii caanka ah Zingam oo soo baxay 2011. Total dhammaan 2019. Ajay Devgan wuxuu guursaday Kajal Mukherjee 24 Febraayo 1999. Kajal waa mid ka mid ah atileeshooyinka caanka ah ee Bollywoodka. Kajal ayaa bandhig faneed heer sare ah soo bandhigtay sida Bazigar, Dilwale Dulhan, Le Jayenge, Tanhaji. Ajay Devgan iyo Kajal ayaa is-shukaansanayay tan iyo 1995. kadibna waxay isguursadeen 1999. Ajay Devgan wuxuu xiriirka la dhexeeyay atileeshada Karishma Kapoor. Xiriirkooda ayaa soo idlaaday 1995 waxaana markaas bilowday xiriirka Ajay Devgan iyo Kajal. Ajay Devgan iyo Kajal ayaa isu dhalay 2 caruur ah oo kala ah wiil iyo gabar. Gabadha magaceeda waxaa la yiraahdaa Naiza waxay dhalatay 20 Abriil 2003. Ajay Devgan waa xidig magac weyn ku leh Bollywoodka kaas oo qof walba ku waashay ficilkiisa iyo jalinkiisa. Maanta ma jiro qof aan aqoon Ajay Devgan. Ajay Devgan ayaa lagu taliyaa mid ka mid ah atoorayaasha ugu guulaha badan Bollywoodka. Maanta sidoo kale waxaa loogu yeeraa Singam of Bollywood sababtoo ah wuxuu ka soo shaqeeyay filimkiisa Singam. Filimkan waa mid ka mid ah filimada ugu guulaha badnaa ee Ajay Devgan sameeyay. Waxdilistiis wuxuu ka bilaabay filimka Fall or Kanti wixii markaasi ka dambeeyay waxuu ka soo shaqeeyay in ka badan 120 filim. Filimka superhitka Ajay Devgan ayaa noqday kuwa ay dad badan aad u jeclaystaan. Filimka Ajay Devgan ayaa sidoo kale filimkan ku helay abaalmarin Filmfare Award ee atooraha ugu wanaagsan. Shaki kuma jiro inuu bandhig heer sare ah ka sameeyay filimkiisa ugu horeeyay sababtaas darteeda inuu laba jibaaro dadaalkiisa asigoo la imaaday filmo aad u qurux badan. Sidoo kale Ajay Devgan sidoo u jilay filimka Fall or Kanti ayaa dad badan ay waxay la yaabeen ficilada iyo action-mada Ajay Devgan uu ku sameeyay marka mootada oo 2 lugood oo saaranaya. Ilaa haddana filimkaas waa la hadal hayaa oo dhanka Bollywoodka wuxuu ku reebay taariikh weyn. Kadib guushii oo gaaray filimka Fall or Kanti, Ajay Devgan filimkiisii labaad ee Jigar wuxuu soo baxay sanadkii 1992 taa oo Karishma Kapoor ka atileesho. Sidoo kale waxay la keentay Ajay Devgan filimkan. Ajay ayaana filimkan Jigar u noqday filim guuleystay. Ajay labadan filim waxay ka dhigan superstar. Ajay wuxuu la yimid filimkii Dilwale kadib markii la daawaday Dilwale. Filimka Dilwale ee soo baxay sanadkii 1994 ayaa la xaqiijiyay in Ajay Devgan uu yahay xidiga soo socda ee Bollywoodka. Ajay Devgan ayaa ku jiray filimkan Arun Saxena. Ajay Devgan filimkiisii Sangam oo soo baxay sanadkii 1998 ayaa noqday filim aad u wanaagsan oo xirfadiisa taleenka. Waxaana filimkan uu sidoo kale ku guuleystay abaalmarin aflaamta qaranka ee qaybta atooraha ugu wanaagsan waqtigaas Bollywoodka. Sidoo kale Ajay ayaa la yimid filimka Hum Dil Juke Sanam ee labadan Aishwarya iyo Salman Khan. Ajay ayaa filimkan ku jiray Aishwarya saygeeda. Filimkan ayaa noqday filimada abid oo sameeyay Ajay filimada ugu fiican. Runtii Ajay filimkan wuxuu ku helay ammaan fara badan. Ajay ayaa abaalmarin fara badan helay marka uu sameeyay filimka Singam iyo Bhagat Singh. Ajay ayaa 4 mar wuxuu ku guuleystay Filmfare Award. Wuxuu helay Filmfare Award oo ku mataystay jilinkiisa aad ku wacnaa Ajay Devgan sida filimada kale ah Bhagat Singh Company, Fall or Kanti. Run ahaantii jilaagan ayaa Bollywoodka aad laga jeclaystay wuxuuna ku helay taageero aad fara badan. Kalaha Bollywoodka ayaa dadka ku maaweeliyo sanado badan. Ku dhawaad qof kasta oo Hindi ah ayaa jecel daawashada filimada Bollywoodka. taas oo kaliya maahan dadka qaar ee aan ku nooleen India ayaa iyaguna jecel daawashada filimada Bollywoodka marka laga reebo caruurta. Dadka waaweyn sidoo kale waa taageerada filimada Bollywoodka. Waxaa jira halyeeyo badan warshadaha Bollywoodka Hindiya ay tahay
goobta heesaha ama jilitaanka waxaa jira fanaaniin badan oo waaweyn oo bollywoodka. Jilaagan Ajay Devgan ayaa marar badan wuxuu ku guuleystay abaalmaro fara badan. Ajay Devgan ayaa bollywoodka wuxuu ku leeyahay awood sare. Ajay Devgan wuxuu helay abaalmarinta National Award ee jilaaga ugu wanaagsan filimada sida Sankam iyo The Legend of Bhagat Singh. Ajay Devgan ayaa sidoo kale 4 jeer ku guuleystay abaalmarinta Filmfare Award. Waxuu helay abaalmarin Filmfare Award oo ku mutaystay bandhigiisa wacnaa ee aflaamta sida Company for Our Country, diiwaanka The Legend of Bhagat Singh. Ajay Devgan ayaa sidoo kale helay 4 abaalmarin season ee filimka. Ajay Devgan wuxuu kaloo helay 4 abaalmarin oo ku helay xafladaha Stardust iyo Screen Award. Ajay Devgan kaliya ma ahayn atooro weyn balse wuxuu ahaa mid ka mid ah atoorayaasha ugu qanisan India. Ajay Devgan wuxuu ku nool yahay nolol heer sare ah. Lacagta Ajay Devgan oo haysta ayaa lagu sheegay 40 milyan lacagta India marka la dhaho. Ajay Devgan ayaa haysta 275 karoor. Sanadkii wuxuu qaataa in ka badan 30 karoor. Lacagtiisa ayaa inta badan waxay kasoo xarootaa aflaamta iyo tvda showga uu qabanayo. Sidaa darteed Ajay Devgan aad ayuu u jecel yahay baabuurta. Sababtaas darteed wuxuu haystaa baabuuro badan oo qaali ah, kuwa calaamadeysan. Haddii aan ka hadalno ururintiisa baabuurta, kadibna baabuurta raaxada sida Maserati, Cottonport, BMW, Ferrari, Toyota, Golf, Rolls-Royce, Range Rover iyo qaar kale oo badan ay ku jiraan ururinta baabuurta Ajay Devgan oo ay ka mid yihiin qarashka Rolls-Royce 610 karoor. Marka laga reebo baabuurta wuxuu haystaa baaskiilo badan oo qaali ah. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Haddii ay tahay markaad ku warsan soo booqato, fadlan hilmaam inaad furato calaamada gambaleelka si aad ula socoto muuqaal walba aan soo gelino. Muuqaalkana sheer garee, la garee oo meel dhergey oo la wadaag asxaabtaada.